توس waxaan tiriyay 47 yaan tiriyay igamana ahayn aniga wadanimo ma aan tirinayn waxa jiray macallimiinta markay Suudaanta iyo noo yimaadaan macallimiin Soomaalida noo yimaadaan oo ma garanaysa Carabida iyo waxa yaa heesa loo qaadi jiray heesa Carabi ah yaa loo qaadi jiray oo khaasan Suudaaniya oo nimankii macallimiinta ay Suudaanta ka ahaa Hargeysa ayaa yaryarkii baray heeso Suudaaniya markaas heesahaas hala haya edwe faladaya heesa caynkaas ah oo Suudaaniya yaa la qaadi jiray markaas marka salaadiinta iyo garaadida ay yimaadeen madaxda Soomaaliyeed baadiyaha ka yimaadaan ee salaadinta yaa loo qaada heesta markaas anigii la yaabay oo miye garanayaan waxan من مهباديه كبده عاقل هو ما قلتي أن صومالي ما هو كلام أقول محاس في السودان الله قاضي قرماي مركزان سري ما أي أفهم يعني ما دو سميش مركزان صومالي توس هستا سي ساسي miraha heesta qaranka Soomaaliya inta badan waxa la xasuusan yahay laba beet waa imisa beet horta heestaasi heesta loo yaqaano heesta qaranka إلى صوماليا توس وحان تري كل يو سقال بقولي أفرتني تصدبدي هسه صوماليا توس تذكر لا بيد بلغة يا بعينه كي يغني وح كل له لكن وحي كقوانتا تصدب بيت أو أصلية يمد عن كل درا أن إذا الله سبحانه قايف يد الله سبحانه أرهير باديها بريتشيدي إن عن كل صوم كانتها حيث أقويه markaas dawladda beed baa runtii ay ka koobantay Soomaaliya toos waxaad sheegtay in heesta Soomaaliya toos oo ay ka kooban tahay 7 beed adigoo waqtigaada qaadanaya heesta ma noo marin kartaa heestaasi saar u sheegay waxay ka kooban tahay 7 beed inta asliga inta dadku darsadeen mooyaane heesta inta asliga ahi waa 7 beed beedka u horeeya wuxuu ahaa Soomaaliya toos oo isku tiirsada هاد بكينا تاقدران تاقيري ويلقين بيتك اللي بدوحو إذنكا إسو توخايو إذنكا إسو تامايي آدمو التعليم بريو ودن كيس التاميين هسا قيبت بيتك الصدحان دوحو تيرا آري يهور نحالا يا سيديد لينين صوت طبي ونبط طبا الله ميل مري وعدوغين إذين تالين بيتك أفرادنا وحوها قرن أن هبكو تمايو توريد النافين وأن تار سمين كانين أوركو تالوينا بيتك لنا وحوها تلدقي لهو عن بعد توقع شعب ولا يدان مدول كاس لني تغي بان ندق حطوري كلا وحوها شرعي اسكو كين تولادو لغدا تو واحده ارلغينا تاكو كما كلا تغيسان من نوك راسنا waxay ahayd hadba waxaan la taahaado togaga uga qeysha nin dalkiisa cadow taabay oo u talwaayay baanahay saas intaas toddobaad asriga intaas ay sahay marka qaadana deesan waxa uu qaadan jiray Somaliye toso isku tiirsaday hadbakina taagdaranay taageera weligiinay idinkaysu toohayo idinkaysu taamaye aadamu tacliim barayo ودنكي ستاجيلي فراري يهود حلا سيد لايدين صوتو بايو نمبطوان لاميل مرايو عدوغين إذين تاليني قرن آنوب كوتو مايوي توري دافايني وأنتار سمين كاريني وركوتا لويناي هاد بوحال الطاهايو
togaga uga qayshaayay nin dalkiisi cadow taabo u tolwaayay waan ahayay haddaan meel yar ka raaciyaan yaroo aan ka manayo markaana leeyahay tiro ari oo dhaxalaa sideed oo soo tobay oo ninba toban loo meel marayo cadowgeen idin talin ujeedadu waxay ahayd waa dhul la qaybsadado de Kenya in bay haystay Ethiopia in bay haystaa maqal saas loo qaybsaday macnaha dhul la qaybsaday weeyaan yani xaggaas amritiisa waxaad sheegtay in heesta ay ka kooban tahay 7 bayd laakiin uu jiro beesh kale oo aad ugu talagashay reer miyiga oo qaafiyada aan la socon bal ma noo marin kartaa idan beydkaas aan qaafiyada la socon ilaa kuwa kale ta oo la socdaan kan waa alif la socdaa oo wuxuu ahaa hadba waxaan la ooyaayo ilmadu iga qabataa ikhtiyaar nin loo diido la adoonsadaana beedkaas oo qaafiyada aan la socon oo kuwa kale waa ta weelasane hadba waxaan la taahado ta la socdaa laakiin kan waa alif hadba waxaan la ooyaayo ilmadu iga qabataa ikhtiyaar nin loo diido la adoonsadaana beedka weeyaan beedka aan badan reer miyiga sidoo jirin jiray markaan tiriyo way xiisan oo jirin reer miyiga waxaa jirtay in heestani ay horey u sheegteen laba abwaan oo Soomaaliyeed Allah naxariistay labadaas abwaan waxay kala ahaayeen abwaan Qaasin Hiloole iyo waliba abwaan Yuusuf Xaaji Aadan maxaad ku cadeynaysaa in heestani aad adigu leedahay heestan waxaan ku cadeynayaa labadaas yani inay anigu heesta aan leeyahay mid waxa weeye horta Qaasin Hiloole horeysiinayay heesta markii aan tiriyay nin la oran jiray Daawud Tima Yare oo reer Gaalkacyood ah ayaa heesta qaaday xamar geeyay marka wuxuu geeyay Soomaaliya toos oo kaliya yuu geeyay isagoo intii hayn Qaasim Hiloole idaacada fura yaa ku fura Soomaaliya toos ku furay intaasoo ku fura aroortii buu ku fura marada idaacadu subax walba ku furo ayuu isisiiyay marka anigoo maqanba oo aan joogin dalkaba joogin oo wadanka Sacuudiga jira ayaa la heesii la yiraahdaa heesta Soomaaliyeed loo qaato heesta qaranka markaas Soomaaliyeed toos loo qaato markaas uu sheegtay in aniga ale markaas dhag niman baa la hadlay yiraahdaa heestan ma laha nin kari waxaadan u lahayn de luqadaba kuma jirto ayaa la weydiiyay waxa la yiri macne tuldag markaas uu garan waayay tuldageela hor dhacama toogasho oo dhan ereyga tuldaha la yiraahdo uu garan waayay wuxuu kala garan waayay idinka isu tooxayo idinka isu taamayo kelmadda tooxana uu garan waayay oo koonfur waxa loo yaqaan booto ereyga toox loo yaqaan booto koonfur loo yaqaan ereygaas markaas halkaas ayuu isagoo ku halay Yuusuf Xaaji Aadan nin aad suugaanta aniga iiga badiyo ah nin suugaanta badiyo ah aad gabayadiisiina dadku waan la qorini kuwa badan oo kala daran oo wadani ah yaa jiray yani midna waxaan ka xusuusnahay in Umar gabay uu tiriyay oo gabaygiisa ahaa dooxada hawaas meesha iyo laama dacalkooda dalka waxaanu leenahay tan iyo degalka xaafoone dulli baa inoo qaran haddaan la isku keen darin haddaan Soomaalida intaas afar degeys leh inta haddii la isu geyn dhibaata ka tahay yani Soomaaliya qabsanaysa inuu yani gabi caynkaas tiriyay baa oga waxa kale oo lahaa heestan muxuu ahaa Soomaaliya toos markii anigu aan tiriyay waxaan ahay dhulka dhan tagay baan nina qori u tooray yaani marka isaga yiri war qoriga bedel oo dhagax ka dhig markaas ereygaana wuleeyahay